بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا خيارتنا هودا ku saaxiibnay oo idilkiinba kuna soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub oo hadahan oo kala aad kaga barateen barta naxariis TV waliba waxaan eegi doonaa kulamadii xalay toole la ciyaaray waliba kulanka ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa kooxda PSG iyo kooxda Bayern Munich kulankaas ayaa ahaa kulan adag waliba kulan kale asagana ay dheeleen kooxda markaas Blue iyo kooxda FC Porto kulamadaas ayaa la ciyaaray waliba waxaan ku eego doonaa qodob xasaasi iyo sidii habkii goolasho loo kala dhaliyay kuna soo dhaw waliba goolkii hore ciyaarta waxaa dhilay ciyaartooyga Kylian Mbappe oo caawin ka helay xidiga Neymar goolka labaad ciyaarta intuusan la jeegareynin ayuu hadana labeeyay ciyaartooyga Marquinhos siday ahaatay ciyaarta Bayern Munich 19 kulan ay safatay gool darro ayay la soo hooyatay marka laga reebo sanadadii hore waxay ahaataba ciyaartooyga Bayern ayaa mar labaad soo rogaal celisay oo soo laabatay waxay gool ka heshay ciyaartooygeeda Matoba Martinez ciyaartooygii hore ee PSG siday ahaataba Bayern ayuu si xoogeysanaysa oo rikoodkeedii la soo laabanaysa ayaa hadana gool la timid Thomas Muller ayaa u dhaliyay goolka sidaas ay ciyaarta ahayd waxay ahaataba ciyaartooyga Neymar caawinaad uu sameeyay ay ku dhalashtay hal gool sidaas ayaa lagu kala baxay ciyaartaasi aan eegno kooxda Blue FC Porto ay la ciyaartay qodobo kale oo sidaas u dhan ayaad maqli doontaan marka hore waxaan idin ka codsanayaa waa idin soo dhaweynayaa leeg muhiim bay noo tahay dhageystayaal saaxiibayaal soo dhawaada subscribe hanaga hilmaamin waad mahadsantihiin